tababarkan oo muddo bil u socday qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tababarkaasi waxa lagu qabtay jaamacadda Adna Aadan waxaana tababarkaasi ka taageereysay jaamacaddaasi munaasabada lagu soo gabagabeeyay tababarkan ayaa waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Adna Aadan oo gooraalkaasi waxa ka hadashay Dictorayse Adna Aadan Ismaaciil aasaasaha jaamacadda Adna Aadan waxaana ay ka warantay muhiimadda uu tababarkan u lahaa macallimiinta qaadanayay muddada bisha keenay wax weeyaan horta dal jacayl iyo danta aynu ka leenahay ummadeena iyo caruurta dhalinyarada maganta inoo ah nala jooga aynu soo barbaarino aynu wax soo baro adduunka aragtidiisa aynu indhaha u dilaacino haddii aydinaan dad aqoon leh aydinaan markii horeba ahayn cidi macallimiin idinkamay dhigteen markaa dad markii horeba wax la yimid oo tayo la yimid oo aqoon la yimid baad ahaydeen haddii bishaas ay inoo suuro gelisay inaanu waxyaabo idin sii xusuusino ama aynu ka wada heshiino inaynu nidaamka caruurteena aynu wax ugu dhigno oo aad nala garateen oo nala qaadateen waa ilaahay mahadi waxaan doonayaa hooyo inaynu yeelano dareen damqasho ilmaha yar meesha uu ka yimid inankaa yar iyo inantaa yar duuf kale boorka weyn leh halkaa inoo soo fadhiisatay kontonka caruur ee klaaska fadhida kamid ah horta meeshay ka timid inaynu xusuusanaa ayaa loo baahan yahay dad lagu faanaatihiin tiimkii hawsha inoo qabtayna maasha Allah si fiican oo si hagar la'aan bay uga soo baxeen haddii ilaahay wax inoo kordhiyo oo aynu ama diploma helno inaynu ku sameeyno ku wadno waxbarashada dabcan waynu sameyn haddii inoo suuro gashay inaynu bachelor raadsano oo aqoonteeda halkaa la idin gaarsiiyo waynu raadsan oo diidi mayno haddii ilaahay naga hor joogsado xaggeena soo marin waayana waa bardo alxamdulillaah wixii ilaahay inoo garto baynu heli doonaa laakiinse dhinaca iyaga inaanu hakrano had naga filina marka waxaan hadalka soo koobayaa macallimiintii dugsiyadii ay ka yimaadeen macallimiintaasu inaad ogaataan dad fiican oo maasha Allah ayaa caruurta gacanta idinku haya gudoomiyayaashow dad fiican baad soo xusheen haddii inta kale ku hadhay dugsiyadiina ay caankaas oo midho wada yihiin maasha Allah qani baynu nahay marka ilaahay haydin barakeeyo hooyo ilaahay mustaqbal wanaagsan baan ka baryayaa geesta kalena Mustafa Xasan Daahir gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Adna Aadan ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay tababarkan todobada inoo socday muddada bisha ah waxaan cid u mahad celinayaa macallimiinta ka soo qayb galay iyo tababarayaashaba waayo dhamaantood waxay muujiyeen mas'uuliyad waxaanayna tusiyeen inay yihiin ummad qaranka lagu aamini karo ummad soo saari karta hogaamiyayaasha qarankan maamuli doona mustaqbalka insha Allah caadiyan marka ay dadku tartamaan waa la kala dheereeyaa waxaan halkan sharaf ah in boqolkiiba 50 macallimiintu aanay xataa hal maalin jarin oo attendance-kooga inay tababarka ka soo qayb galaan oo boqolkiiba 100 ahaa kala badh macallimiinta halka boqolkiiba 30 kalena ay hal maalin uun maqnaayeen oo ardayga computerka ee dadaalaya ee mustaqbalka leh uu macallinku wax ku darsado oo uu soo saaro kartidiisa sidaas lama ayaan rabnaa macallimiintu inay ardaydooda la xisaabtamaan qaar ka mid ah macallimiintii tababarkaasi qaatay ayaa ka warramay waxyaabihii kala duwanaa ee la baray muddadii ay tababarka qaadanayeen iyagoo sheegay in ay ku dabaqi doonaan aqoonta ay u dhigaan ardayda waxaan mahadnaq guud iyo mid gaarba u soo jeedinaynaa maamulka jaamacadda iyo macallimiinta iyo dhammaan howlwadeennada jaamacadda Adna Aadan oo runtii ah dad haldoora oo runtii aan oran karno waxaanu ka helay fursad aad iyo aad u qiimo badan oo meel kale ana ka helin cilmigii bartan aanu ka qaadanay haddaan nahay macallimiintii dugsiyada sare waxa ugu muhiimsan inaanu ku dabaqno goobihii waxbarashada waxaan leeyahay anigu isleeyahay Adna Aadan way ku abuuran tahay inay founder noqoto waayo waxa xisaabiye dadka macallinka markuu macallimiinta xisaabta markaba waxay ka eegaan xagga xisaabta boogta waxaan markiiba 40 jaamacadood oo waddanka ku yaala haday min 30 macallin tababaran waa 1200 oo macallimiintii waddanka joogtay dhamaantoodna haddii 3 jeer la tababar way dhantahay tababarkii marka aan trainingkaas inoo socday waxa ka maqraati kacaya
in macallimiintaasi ay wax badan meeshaasi ka faa'iideen waxaas oo ahaa waxay dhexdooda kala faa'iideen waxay tababarayaashooda ka faa'iideen iyo wax badan oo dhiirigelina iyo wax badan oo dadaalo oo ay sii socon karaan wixii taal ay marwadu haysay iyo jaamacaddu wayda wada dul dhigtay waxba idin kama hagaran maadaama billan dusheedin ku siday aqoontiina ay kafaalo qaaday wixii sacrifice idin ku baxay idin siisay waxba idin kama hagaran idinkana abaalkaasi u celisaan bal idin keegi doona haddii la yiraahdo dhanka kalena mid ka mid ah macallimiintii bixinaya tababarkaasi ayaa istuu taagay nuxurka iyo dulucda ay xambaarsanaayeen casharada la siinayay macallimiintaasi gabagabadiina waxa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay macallimiintii loo soo xiray tababarkaasi